warbaahinta carabta ayaa ammaan kala dhacday madaxweyne Farmaajo kadib markii lagu sifeeyay inuu yahay madaxweyne dulqaad badan oo ka siyaasad dheereeya madaxda carabta. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa door shariif ah ka qaatay xal u helidda khilaafkii muddada dheer soo jiitamayay ee u dhexeeyay wadamada Khaliijka, gaar ahaan Sacuudiga iyo Qatar, kuwaasoo muddo ku kala maqnaa dagaal siyaasadeedsan oo saameyn weyn ku yeeshay dowladaha Bariga Dhexe. Madaxweyne Farmaajo ayaa horaantii sanadka 2017 muujiyay dhexdhexaadnimo iyo diblomaasiyad aad u sareysa oo uu kula dhaqmay dowladaha Sacuudiga iyo Qatar oo ku dhawaad muddo 4 sano xiriirkoodii cakirnaa. Warbaahinta carabta ayaa aad u hadalhaysa madaxweyne Farmaajo, waxa ayna qaarkood warbixinada ay tabinayaan ciwaan uga dhigeen madaxweynihii adkeysiga badnaa, taasoo ay ula jeedaan inuu si habsami leh u maareeyay culeysyada siyaasadeed ee uga imaanaya Sacuudiga iyo xulafadiisa oo dagaal qarsoon iyo mid muuqdaba uu kala kulmayay muddo 4 sano ku dhow. Sidoo kale warbaahinta qaar ayaa soo bandhigtay 80 milyan oo Sacuudiga oo keenay madaxweyne Farmaajo si uu xiriirka ugu jaro dowladda Qatar, balse uu Farmaajo arrintaasi ka biyo diiday, isagoo ka doorbiday inuu dhexdhexaad ka ahaado dagaalada siyaasadeedsan ee ka dhexeeya Sacuudiga iyo Qatar. Dowladihii muddooyinka dagaalsanaa waa heshiis, laakiin kuwii la kala saftay waxaa dhacay gobolkoodii oo siyaasad iyo dhaqaalaba ay hooseeyaan. Waxa aan go'aanka madaxweyne Farmaajo ka baran karnaa dulqaadka siyaasadeed iyo faa'iidooyinka ku jira inaan la safan dowlad gaar ah. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa soo dhaweysay bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kuwait ee ku saabsanaa miro dhalka dadaalada dib u heshiisiinta boqortooyada Sacuudiga iyo dowladda Qatar.